Assalaamu calaykum. Maanta waxaan soo gudbin doonaa kelimado kooban oo ku saabsan fadliga soonka maalinta tobanaad ee bisha Muharram oo ah bisha koowaad ee sanadka Hijriyada oo aan hadda ku jirno. Bisha Muharram waa bil barakeysan oo ku weyn Allah agtiisa, waxayna ka mid tahay afarta bilood ee loo yaqaano Ashhurul Xurum, bilaha xurmada leh. sida quraanka ku xusan nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu sunnadiisa noogu sheegay. afarta bilood ee xurmada leh waxay kala yihiin Muharram, Dulqacda, Dulxaj iyo Rajab. Fadliga soonka bisha Muharram guud ahaan waxaa ku soo arooray sunnada nabigeena inay fadli leedahay soonka sunnada ah oo la soomo bisha barakeysan ee al-Muharram, sida ku xusan xadiiska afdalu siyaam bacda Ramadaan shahrullahi al-Muharram, oo macnihiisu yahay soonkan ugu fadli badan soonka Ramadaan kadib waa soonka bisha Muharram. Haddaba iyadoo fadligaas leh ayaa haddana waxaa ku dhex jira maalin lagu magacaabo Cashuuraa. Maalinta Cashuuraa waa maalinta tobanaad ee bisha Muharram. munaasabada soonka maalintii uu Allah ka badbaadiyay Nabi Muuse calayhi salaam iyo qoomkiisa shartii Fircoon. Marka Allah dartiisa ayaan u soomeynaa maalintaasna waxay ahayd maalinta tobanaad ee bisha Muharram. Fadliga Cashuuraa, nabigeena sallallahu alayhi wasallam mar la weydiiyay soonka maalinka tobanaad ee Muharram waxa uu ku jawaabay: waxaan Allah kaga ajar dalbanayaa inuu ii dambi dhaafo sanadkii ka horeeyay. faa'iidooyinka kooban sida ugu dhameystiran waa in la soomo maalin ka hor ama maalin kadib Cashuuraa, oo soonka maalinka sagaalaad iyo maalinka tobanaad ama maalinka tobanaad iyo maalinka 11aad. Ibn Qayyim wuxuu sheegay in soomidda Cashuuraa ay leedahay 3 darajo kala ah. in la soomo 3 maalmood ee aynu soo sheegnay waana tan ugu fiican. in la soomo maalinka sagaalaad iyo tobanaad waa tan fadliga ahaan ku xigta in la soomo maalinka Cashuuraa. haddaba qofkii aanay u suurtagelin inuu soomo maalinka sagaalaad, wuxuu maalinka tobanaad ku dari karaa maalinta 11aad. guud ahaan soonka Cashuuraa waa sunno fadli dheeraad leh, mana ahan waajib, inkastoo uu waajib ahaan jiray intii Ramadaanka la soo rogin. Ilaahay waxaan kaga tuugaynaa inuu na waafajiyo, naga aqbalo soonka Cashuuraa iyo acmaasha saalixa ah oo idil.